ها وان كجدبي ها وان كجدبي waxaan tagay higlo mustafa akshar meesh ku dhashay higlo waan guriga mustafa akshar ku dhashay ma aqaanano odayga badiya sax guriga qolku ku dhashay baan hor istaagay ninka hor istaagay baan sax imelo cidna doogeen waran soo qabanaya waxa hadlaya ninkan hadlaya waa youtuber wana saxafiya wana soo qabanaya hay ka soco aad iyo aad marka waxaan u tagayna waxay ahayd indhayn macnaha qiimo inaad wax qiimaysaa loo baahan yahay moogta inaad wax iskala laablakacda maaha inaad wax qiimaysid aad hor istaagtid guriga uu ku dhashay islaan ayaw ah baan waraystay haye waxaan ku iri mustafa intuu yimid iyo maamulkan cusub iyo ebbda cusub iyo barwaaqadan intay timid wax guryaha laga bedelay ama wax biyo gelin ama wax koronto la bedelay iyo wax ishageel ma jiraan wax meesha laga bedelay ma jiraan صح الله حالاتي بتجي بري وهيدا كشقينا هنودان يو ان اتش ار هيدا قحنتيغا هيدا قحنتيغا برغاس ayaa noo dhaanto markaas 150 iyo 200 wax soo dir jiray wallahi baan been kelmad been ku dirin hal kelmad oo been inaan sheegin صح waaba iloobe bay dhayn macnaha maba dibba maanan aragba barigu hay'adda ka yimid baa noogu dambeysay dad badan baa ku dhacday kaliya ka soo waan ka dhaqaaqo waxaan dhuwa la fiisan uma roona laf guri talan uma roona waan ka sii gudbay waxaan u gudbay ishay halka iyo qabdahar baan tagay qabdahartu ishay hadina ku roon yahay waxa ishay inta aan dhax socdo waxa nala socda gawaari macnaha gawaari waxa wadada ku sii maraya raran oo isjiidiyaal ah oo dad aad moodin tarxiil soo ma garanaysa tarxiil si fiican dad musaafiriin مسافرين او نيري مسافرين Soomaali lagu celinayaa aan ku wadi marka hore aan mooday dad Soomaaliyeed oo celinayo Ethiopia celinaysan mooday marka dambe la sheego la yiri waa Ethiopian waxa la geenayaa gaariga hadda waxa saaran 215 nin new boris laba nin oo new boris mid qori wato mid aqal war la'aana baa ishay wada oo ilaalin haya waxa lagu wadaa baa la yiri wardheer hay adeer bal aan ka dhacay dadka dhaxmaarada maxaa wardheer loogu wadaa baan ku yiri oo sabab maxaa keenan ku yiri in wardheer la geeyo wax maamulka anaga na yiri ilaari waa anaga laftiga anaga ay isweydiino oo isku wareeray labada nin ee new booliska ilaalinaysa isku wareertay labadan gaarigan xagal meesha ugu wado maalin kasta ayaan waxba kala ogeynba waxba oga xayana la ilaaliyana la halka geeyana la wardheer haye okay waan ka sii gudbay qabdahar baan tagay qabdahar markaan tagay waxaan u tagay dira ku rooyay magaaladii leemankeeda waxaa keedsan hotel waxaan ku tagay aan odayaan adeerkayga hotelkiisa ku tagay hotelka waxaan ka shaqeynaya laba gabdhood oo axmaar ah oo shaqaale ka samarka wiil axmaar ah oo yiri ishagay hooyadu waa dhabu buu yaray ka sarma yarana leh waa qabdahar maxaa sababay ka shaqeeyay markaas waxaa sababay maamulka yiri shaqaalaha aaminka waa intaas qofka Soomaaliga qof buu keenaya Soomaali ah adeer waxa lagu shaqeeyaa buu ku oran bishi waxa lagu shaqeeyaa 3,000 markii la yiraahdo ayagu dhahan ayagu maamulka laftigooda dhahan ninkii isheedin karo waxa la leeyahay 3,000 war ninka jambaan ku keenina oo ka aaminsan haye Ethiopia ku keenina 1,500 kugu shaqeynaya warqad wuxuu wataa marka ninkaas shaqaalaha qof kasta ama axmaar ha noqoto ama nin kasta ha noqdo warqad wuxuu wataa heer federaal ah oo nin kasta Mustafa Akshar ka baawur sareysa ninka shacabka aad aragtid ka baawur sareysa maamulkan iyo waxan iyo ma yaqaanaba waxan boodhaba ma yaqaan hadaa sababta waa amrina waa Ethiopia amrina way nin bugraacaya heer federaal bugraacaya haye wallahi waa sidaro gabadh baa ku rishaahiga iibi kabajiraha hotelka seexday ororta ku ri kabajiniga iibi af Soomaali ha ku hadlin bay tiri macnaha Ethiopia areelam Ethiopia bay ugu tiri saakuri Ethiopia was eedeedas halkan waa qorxay baa ku ri halkan waa Soomaali waa qorxay halkan waa qorxay walaal halkan waa qorxay af Soomaali waa ku ri waa Ethiopia bay tiri Ethiopia way halkan marka waxaan ku ri warnin yaa la yaar Suuriya kana war kii meesha ayaan ku ri warniyo maxaa khaldan oo maxaa kan dadkan wuxuu yiri maamulka noo keenay maamulka hadii la ka rijgarisan yihiin xafiis baa ugu yaala meeshan maamulka Mustafa keenay saasay ku shaqeynayaan wixii naga luma maamulkan u qabsanaynaa ayaana keensaday صح wixii dambe ahay ishay sameeyaan maamulka baa aadayna darbaax ma indhiin waa sida
laanka marka laamiga meesha dhulka guryaha la dhiso waxaa tuugan axmaaro madmadow baa taagan rag iyo dumarba oo gari weyn iyo badeello wata raysluhu waa axmaaro ka bangigu waa axmaar ka iisha hadilaa kuu rooyahay telefoonada warskaafintu waa axmaar ka iisha hadilaa kuu rooyahay leemanka xidhay waa axmaar ka iisha korontada xidhay waa axmaar dhakhtarkaan u kacay markaan wareeray baan bal xagga dhakhtarka iyo dadka af Soomaaliga aan aqoonin ila waxa la keenayaa dhakhtar mid loo keenayaa la keenayaa dhakhaatiirta iyo dhakhtarka weyn marka qadaar xagga iyo banka qurux looga baxo baan u baxay waxaa fadhiya nin axmaara oo ii sheegay labada kood buubuuran oo yaa fadhiya waxaan idhi ninkan caafimaad baan rabaa baan ku idhi caafimaad meesha maxaa ka rabtaa caafimaad baan rabaa baan ku idhi wariyaa feeraha laga qabtay xagga laga qabtay baan ku idhi wax kale ma raba anigu waxaan ahay qof ii sheegay wax u socda nadaam baan u socdaa maanaha qofka inuu af Soomaaliga bartay wuxuu ugu yidhi adhalan Soomaali okay dad weynaad u shaqaynaysaa kuuriyaalka Soomaali baa iskale dad weynaad u shaqaynaysaa seed marka aad ii sheegay seed lagugu siiyey haddii la kuu reebay lagugu siiyey haddii la kuu ruqso inaad ka shaqaysid dhakhtarka aan dadka Soomaaliga lama Itoobiya bas ay yimaado dalka ma dad len Soomaali way dadka wax loo barin Itoobiya loo barin waa Soomaali meesha dadka seed ku shaqaynaysaa baan ku idhi wuxuu yidhi nin meelahan ka fiiri biimaday oo weyn oo turjubaan oo taagan turjubaan dhakhtarka qadaar turjubaan baa jooga jarmalka oo joogana turjubaan ma lihi qabri dahar oo ii sheegay meeshan ku dhashayna turjubaan baa jooga waa magaaladan ku dhashay turjubaan baa jooga jarmalka oo joogana turjubaan ma lihi fag waxaa marka ii sheegay ku cadaan oo iska cad dhulka inaynu iska joogno oo aynu dad ugaadh aynu nahay ugaadh caadi inaynu nahay oo wax lagu sheekaynayo waxaan weydiiyey systemkan haddana ii sheega jira iyo kii hore isku mid baa maye kanu haddii la kuu rooyahay wax kaste oo Soomaaliya waxaa laga horumarinaya in Ethiopia siis waaba isaga sinaya waa priority wana siya ninka Ethiopia ninka Ethiopia waa la siiyo oo ninka Soomaaliga noqdo haddii la kuu rooyahay qofka system manaha uu noqdo qof ku yar dhulka ku yar تام حسبي مركا تام حسبي مركا ما حسبي ما وقاد وعودي ما أرنتن ونكن محوها قرع أبي أحمد اللي هذا ساملوسكا ما هوشن وليه هي وعسوا علنا محوها أبسينيا إثيوبيا عندنا ووحو إثيوبيا دن أنا إسكله وحمارة إسكله مياه شيء كذلي مثل مصطفى عشر بأرك روح على وحوشن وحوين وقد رسم زوقات يسوي ولا مصطفى وانين لا سو قادو laga soo diray Addis Ababa balaankan ishii hadii la ku rooyahay Ethiopia macnaha Ethiopia waa qoomiyada fara badan populationkeeda markii la yiraahdo qoomiyada badan baa madaxweyne وتيم بير فنا maxaa laga qarbo kule تيم بير وتيم بير maxaa waqti anaga sidoo waxa la socotaa Ethiopia marka Ethiopia tahay xilka markii loo dhiibay ninka madaxweynaha haduu yahay Tigreegu kuma soo gaaro xuduud ma leedin wuxuu isku dayay inuu kugu xukumo kugu maamulo meesha oo shaqaale noqotid oo laakiin noolaatid dhulkaagana haysatid laakiin halka uu asagu noqdo nin haysta oo madaxweynaha inuu noqdo laakiin waxaaga hoos oo dhan is adiga leh laakiin uu kugu gumaysanay oo waa inaad shaqaale noqotid laakiin wax kasta aad u hayso xafiiska hayso bangiga hayso wax kasta hayso laakiin uu kugu gumaysanaya أحمرض لكن وحكد وين بين هاي أو لا يوم من الخلاء أحمد قري ورجيت بين كل شن بقول أو صناعة باكرة أحمرض وحي هبطة أو هاي ساعة سيدا لسعوتين لما يكون إيو سجارية طبعا كي مصطفى مركو كان يحبور نكى أدرى كورو يا نكى محوها إيش يدرى كوتلجا نكى يستي وحيري كتاشة كتاشة مركو كان وحيري كل كان سومالي ضو حكوت ميت خير جورا dhulkan annaga askar ahayn buudi buudaha markaas balaanka la furay waxa ii sheegay ka furan xafiis markaan daba galay waxa ka furan tigsiga xafiis maalgelin oo Ethiopia inta laga keeno xamaarada Gondar iyo Bochaanti laga keeno gawaari lagu keeno basas lagu keeno subax kastaba 5 bas 3 bas istaba irdahay soo daadiyaan xafiis la dajiyo kaararka warqadaha loo shaabadeeyo oo inay ka sareeyaan qof kasta oo la hadlo wax gaarsiiyo dalka markay galaan dhexbur marka tagaan qadaar marka tagaan wardheer marka tagaan afdheer marka tagaan goday marka tagaan warqada inuu qofka soo garaaci karo ilaa heer federaal ah dadkanu inay yihiin dad dibidajin lagu sameeynayo oo dhulka population hadhow doorasho haday timaado
waa sida soo wala baxaan socoto